waa maxay company-gan Herbalife muxuu ka samaysan yahay maxaa loo aas-aasay xaguu ka yimid muxuu faa'iido inoo leeyahay shakhsi ahaan iyo Soomaali ahaan waa su'aal muhiima iyo su'aalo muhiima adiga ku anfacaya walaalahana anfacaya بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا تحب وترضى بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا أولها ملك استدولة تكونوا شين صاحبتي يا أصحابتا يا فاميلكا ما تروح ربنا يدروا ذاك مقال يروح كوسا بسن ربنا كهالله وما حي كبني هيربلايف محله أساسي محوك سمسيه محوي هي محوي نافعية سوي نافعية سوي نافعية دمان جودها مجرهان صوماليهان الشخصيهان والسؤال مهم أو بهالقف كل سويدي تذكروا بهين روتين أنت بدن أي سويدينيا جودهان كبرين وكمبني كوجولستي قبل مرنا كوهايستا كوهالي خاطرت دوك وقبل سنة هايستا أو هالكورجالسيني PhD يو نوتريشنست أما ده كان كنت خاصة عنتوي كدبيعية كبرين سوينا قبل مرنا ساس كوهالي عنتدا وسميني تي عنتد دبيعية وعنتو قفك runtii ka caawinaysa ama suurtagal noqonaysa inuu qofkii isticmaalo cuntada company-gani uu helayo vitaminiski iyo mineralski maanta jirkiisu u baahnaa isagu markaa qofkii u noolaanaya hab caafimaad leh energy maanta loogu talagalay iyo shaqadiisa iyo hawlihiisa iyo khaaska ha wadanay maanta dadka badankeena waxaad arkaysaa cash badan baa haya wahsi badan baa haya xanuun tiro badan baa dadkeeni isaga dhacay oo iyo dawooyin badan iyo kiina badan bay qaadanayaan farinteed waxay tahay kilibka maanta aan kula wadaagayo adigu wax ogow waxna baro walaalkaana u sii gudbi muhiimadda waa intaas waxa la guul ugu gaaraa if ya akhiro in adigu wax fahanto wixii adigu fahantay wanaagsan aad ka heshay ku anfacina walaalka u sii gudbiso cuntadaasi oo qofkii isticmaala وسامحaysa suurtagal noqonaysa inuu vitaminiski iyo mineralski maalintii u baahnaa jirkiisu inuu helo taasna waxay isu fududanaysaa inuu qofkan hab caafimaad leh u noolaan doono kana gudbi doono kana bixi doono marxaladahan maanta dunida ku wareegsan ee in dadkii ay noqdeen inay ku socdaan ama ay ku noolaadaan dawooyin iyo kiniin wax la mid ah taasna waxay keenaysaa runtii wax iska yimid maaha ama wax markii la sameeyay maaha waxa sababay cunto xumada aynu sameynay waxaan sababay cuntada qaldan aynu isticmaalino waxa sababay maanta walaalo badan oo dunida ku nool ma quraacda ma isticmaalaan quraacduna waa meesha kaliya ee maalintaada ay ka bilaabanto aragti waxa jirta oranaysa maalintaada ku bilow si sax ah waxa hubaal waxay ku dhamaanaysaa si sax dadka marka la sheekaystada weydiisa dhamaantood waana waxay u wada baahan haddana waa waxay wada diidan yihiin sababtay u diidayaan ma garan karaysid xataa isagu ma yaqaan marka la sheekaysta taa sababta u diidaysa maxay tahay company guud ahaan wuxuu ku guuleystay inuu sameeyo cunto dabiici ah cuntaasna kuu samaxayso suurtagal ka maartay kuwa ah mataqan energy-gaagii iyo maalintaadii si fiican ay ku bilaabi doonto insha Allah waxaan ugu baaqinaa waa healthy active lifestyle inuu qof kasta ku noolaado uu rabaa wuuna doonayaa laakiin dadkan way ka hor imanayaan waa iska negative dhibaato ma laha diidmadu waa wadada loo maro guusha marka haddaad aragto xanuun badan waxa ku xigta inaad guulaysato dadkaaga aad caawinayso ajarna ka helayso marka fursadaha ku jira company-gan ma soo koobi karayo runtii clip ma soo koobi karayo laakiin muhiimaddu waxay tahay inaad aniga soo xiriirto su'aasha rabtay weydiiso habka aad ugu noolanaysa weydiiso ku darso meelaha qurbahaynu ku noolahay ama 96 wadan ay ka shaqeyso oo ka shaqeeya company-gani waxa jira hay'ado cuntooyinka controller iskama soo galayaan cunto qaldan ama product ama wuxuu doona ha noqdo fursado badan baa ku jira oo ah hadda dad aad caawiso adiguna aad tiro guul gaarayso u noolaan karto hab caafimaad leh caawinta dadkaaga caawisay iyo natiijada dadkaaga ay helaan hadhow tiro abaalmarin aad ku heli doonto laakiin muhiimaddu waxay tahay waxaas waxa ka horeeya taadu inaad fahanto muxuu ka kooban yahay muxuu ka samaysan wuxuu ka kooban yahay fitamiinadii mataqaana maxaa la yiraahdaa jirkaaga u baahnaa vitamin A vitamin B vitamin C B6 B12 magnesium waxyaabaha dhanba ka kooban marka cuntadani waxay ka caawinaysaa inaad shaqo badan xagga quraac badan aad ka samaysan lahayd liin iyo rooti madow iyo waxyaabaha aad samaysan lahayd halkan lagu soo koobay koobkaas aad cabaysaa ama pancake-kaas aad cunaysaa ama waxaad qaadada ku cunaysaa mataqaanaa alaabta aad samaysatay noocyo badan runtii aad ku aflixi doonto kana heli doonto dad badan wax laga yaabaa qalad ka fahansan ama dad badan u baahan dad kale ay bac ku xidhan sababta adiga
baclo ugu xidhay meeshan ma taala ama lagaga cabsi gelinayo waxay ka shaqeeyaa kamanigu ka shaqeeyaa 96 wadan qurbahana ma soo gasho cunto aan la control hay'ado waxa jira diyaar u ah oo jooga inay cuntooyinka controlan qasad waxa kartaa weydii kartaa kamanigu wuxuu yahay wuxuu ka sameeyay mid kale aniga ma diyaar ku ah oo afkaaga hooyo kugu sharxaya ku sheegayo ku baraya muhiimadii inaad wax iibsato laakiin muhiimadu waxay tahay inaad horta adigu wax barato marka waxa anigu waxba ku baraya waxay tahay fariinta amaanta ama muuqaalkan u duubaya waxay tahay inaad adigu wax barato waayo waxa aad barato kadib go'aan ka gaaraysa waxaas ma ku anfacaya mise kuma anfacayo koow laba hadduu ku anfacayo go'aan qaadato haddaad go'aan qaadatana ficilka aad samayso taas hadii fi aakhirada ku guuleysanaysa laakiin waxaanad aqoonin aanad arkin la yiri bas noloshan waxaan ku soo naaleen waa la yiri waa aragnay waa la sheegay taas guula laguma gaarayo wax faa'iidana runtii ma laha marka muhiimadu waxay tahay mar raba inaan warka badiyo sad waxaan uga bogato aad uga hesho aan wax badan u ogaato ana diyaar ku ah isoo wac su'aashuna waa lacag la'aan kadib hadhow marka wixii ka hesho bataqaa hadii ku anfici waayay hadii ku anfici markaas aad arki doontaa laakiin muhiim aha inaad ka hadasho wax lagu sheegay ama noloshaada qof wuxuu arkay aragti qofeedan noloshaada u daba fariistaan noloshaada iskale go'aankana aad iskale inaad go'aanka qaadato noloshaada hormariso taasi aday ku fiican tahay kuna anfacaysa guula u gaar doontaa if ya aakhiro haddaad rabto inaad murqi samaysato ama mushkil game ka disanayso haddaad doonayso inaad adigu miisaan iska dhibayso hab caafimaad leh haddaad adigu rabto miisaan aad kordhiso hab caafimaad leh haddaad labada midna ahayn laakiin aad rabto vitamins-ka iyo minerals-ka maalintii inaad hesho caafimaadkaaga ku dadaal waxa weeyaan waa miisaankaaga ku dadaal waayo markaad caafimaadkaaga ku dadaasho adigu miisaankaaga wax kastana waad xakamaysaa maalintii maxaa u baahan tahay 40 carbohydrate mid fiican mid xun baa jira ka fiican isticmaasho faatka sidoo kale good fat iyo bad fat baa jira ka fiican isticmaasho maxaa la yiraahdaa proteinka sidoo kale muhiimadu waxay tahay warkaas iyo warar kale badan iyo su'aalo kale badan aad qabto aad ka bogan doontaa waad ka heli doontaa insha Allah aniga soo xiriir ana ku siin doona war aad ka heli doonto ku farxi doonto iyo faa'iidooyinka badan ay leedahay runtii clip kuma soo koobi karaya hal muuqaal kaliya marka in badan baa salaamaya waa maasantiin dawashadina assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh